waayahay markabka aadka u ballaaran aadka u weyn ee loo yaqaano Jari Bay markabkaas asaga idin hor yaalo 7th generation oo ah casriga maraakiibta maanta shidaalka dunida qodo wuxuu ku jiraa kuwa ugu casrisan Mareykanka wuxuu la tartamayaa markabkaas waa inay fadaan markabkan sidiisaba 2025 barnaamijkan dhameeso Turkiya shidaalka la baxay iyo shirkada way dhaaftay yaa waa sax kontraad waxba saxiixanay inta badan ayaga qaadanayo laakiin waxaa muhiim ah inaad fahanto meel iska fadhi iyo cidladan saana noo dhaanto walaalkaygiyo cidladan meel inaan iska fadhino waxbana loo qodi waayo hogaamka waxidna hor taagnaado gaaja u dhimano saana noo dhaanto shirka Turkiga wixii saaqaad 5% hanal siiyo dawladdan xasan sheekhna cadaalada uga fadhinaa in ummadda Soomaaliyeed 5%-ga hadda Turkiga uu nasiinayo waxaan shidaalka ka soo baxo intaas aba ku filanba sanadaha soo socdana dad ilbax noqon oo wax bartay kulay aniga la wareegeen resource-gan haduu ilaahay ilaaliyo marka hore waa inaa elefantaa wax walba waxaa laga bilaabaa alfabeetada ninka markabkaas Jari Bay horsaasaa loogu dhawaaqaa Jari Bay Gakri hadheen Jari Bay markabka isaga ah sidiisaba qaybta dhigayso sidiisaba waxaa faraha laga qaaday oo la sameeyay asaga dhanba la dhameystiray sanadkii 2025 waa sanadka hadda soo dhaafnay asaga dhanba la farsameeyay rinjiga loo dhameystiray meesha ugu horeysa uu ka howlgalayo markabkaas Jari Bay waa Soomaaliya waa 7th generation sida diyaaradaha dagaalka ma aragto soo generation ma laha soo midka ka dambeeyo maksi casrisano markabkan waa maraakiibta shidaalka qodo kuwa ugu casrisan midka Mareykanka iyo midka Shiinaha iyo midka Ruushka kuwa yani waxa ka wada maraakiibta Mareykanka Shiinaha Ruushka shidaalka qodo kaliya ayaa la tartami kara kuwa Hindiya kuwa hadda Nigeria joogo maxalli adig dal un isoo Ingiriiska iyo Faransiiska waxa ay sameeyaan oo dhan bahalkaas ma gaaraan waa 7th generation waa faca toddobaad waaye wax ka sii dambeeya ma jirto intaas migees horta ku qor darbiga waayahay Turkiga sheekada meeshaan xiiska leedahay dhigis Kenya fursadan way ku riyoon jirtay ma helin Kenya hadda ka hor Kenya waa la gaaday laba markab oo kayku ma saabsan barnaamijkan laakiin laba maraakiib oo qajaf loo soo diray xeebahooda tageen meesha ku dhex jaban ilaa meeshii shidaal cidaas ayada ah Kenya looma qodin Soomaaliya marka yaa xasuusto sanadka 2024 aniga ka ahaa dadka markabka la dhihi jiray Orocrace markabkan Orocrace ayuu Turkiga soo diray magaalada Muqdisho ayuu yimid soo dhaweynaa la sameeyay wuxuu bilaabay saxmintii shidaalkii iyo wuxuu bilaabay markabkaas asaga Orocrace waxaa saaran mashiino lagula bixi karo shidaalka laguna process gareyn karo markabkii Orocrace markuu wixii arkay dhulka Soomaaliyeed badan dhirirka badan ee Soomaaliya waa dalka Afrika ugu xeebta dheer Soomaaliya dal kale oo Afrika la tartami karo ma jirto markabkii markuu arkay waxa dhulkan Soomaaliyeed ku jiro last frontier adduunka naanes adduunku wuxuu noo yaqaanaa Soomaaliya shidaalkeeda marka la fiiriyo iyo kheyraadka badda last frontier waa furunta ugu dambeysa oo haddii Soomaaliya kheyraadka badda la bilaabo in la qodo Afrika oo dhan hadda isku imaato Nigeria South Africa isku dardar ma gaaraan markabkii Orocrace sahmin yaroo bilaabay Muqdisho badda agteeda Muqdisho agteeda ku bilaabay saas u baxay dhulkan wuxuu maray Hirshabelle uu maray Galmudug uu maray intaan loo ku soo warwareegtay markabkii fakatax Turkiga ku laabtay balaayo soo arkay ayuu dhahay Orocrace wuxuu ku yiri Erdogan waxa meesha ku jiro war doqomada dhashay ee Soomaalida iska hururto iska gaajada u dhimanayo waxa meesha ku jiro xaqiiqda gaad leedahay walaalo bas Erdogan diyaaradaha dira F16 dira taangiyada dira ciidamada dira war Turkiga hal wareego Soomaaliya waa shabaab meesha laga saaro waa Kinji dadka xasuusto waxa cajiib ah markabkii asaga ahaa Orocrace markuu sahmintii uu arkay dhulkan wax ku jiro isla markii Erdogan loo sheegay Erdogan isla markii wuxuu soo diray T129 diyaaradaha helicopterada dagaalka ah ee wax rusheeyo wuxuu soo diray drones soo diray ciidamo aad u tababaran waliba ku ugu casrisan Turkiga oo tababarka gaarka ah qabo ayaa la soo diray isla markii wuxuu ku dhawaaqay Soomaaliya in sataraad laga dhisayo isla markii wuxuu ku dhawaaqay mashruucyo aan caadi ahayn bas haddana
iyadoo farxad uu la jeefay ninka odayga Erdogan shidaalkan iyo kheyraadkan iyo Soomaaliya oo u noqday dal asaga markaas u fiirisid uu maamulo qida ka hadlayna mogtahay mana xumo anaga hana la maamulo inta ma aragtay saa isku dili lahayn oo doqomo noqon lahayn waaba nahay hana la maamulo Erdogan hana maamulo aniga diyaar ahay bas waati Israa'iil ay soo fargashatay waati imaaraadka carabta iyo shidadii ay bilaabatay Erdogan furku turtay dir uu yiri F16 dir taangiyada dir dhulkan la igama soo geli karo almuhim marka Ercrois sheekada way dhaaftay waxay maraysaa Jari Bay hadda soo socda xaflad ballaaran oo cajiib ah maanta loo dhigay Soomaaliya shidaalka kan badda iyo kheyraadka kan dhulka iyo macdanaha iyo balaayadan milxo hadda milxa ma maqasho weliga milxa ma maqasho magaalo dahabka ku jiro imaaraadka carabta iyo sacuudiga iyo qashino isku dardar laga meel waa hal magaalo oo Soomaaliya dahabka ku jiro kaliya milxo allah reer Sool iyo Sanaag iyo uraan salaamaya nimiyo dhulkan war waxay ahaataba walaalow maanta iska farax kuwan kale iska cuqdadeysan dullooday annaga kaliya lan dheera macay xasan lama hoostay kari war xasan meesha waa dhaftay baash saaxiibo Erdogan Soomaali waa isdiid waa ognahay Erdogan madaxweynaheena dhaha waayahay intaasa bal ma aragtay soo korortay Kenya barnaamijkan 7th generation markabkan Africa waa meesha ugu horeysay markabkan hadda faraha laga soo qaaday la soo sameeyay meesha ugu horeysay uu ka howlgalay waa Soomaali war Kenya way fahansantahay way cabaadaysaa rafasha ku jirtaa Ethiopia way yaabantahay bad ma haysato Soomaaliya waxaan soo baxayo sanadka ka dambeeyo hadda kheyr noogu jiro talaaba la sii qaadaya haba iska xumaata dawladda marka intaas kaliya ku farax walaalkaygiyo